barnaamijkeenan waxaynu ku soo qaadanaynaa inanka xubinta wadnaha ee jidhkiisu ku shaqaynayay ku sita shandadii kombuyuutarka. nolosha aadamuhu waa mid sii socota tan iyo inta uu ilaahay ugu talagalay, si kastoo ay qaarkeenu la kulmaan caqabado iyo cadaadis nololeed, iyadoo ay jiraan dad si adag kaga gudba wareegga nolosha laakiin ku qanacsan, waxaana kuwaasi inta badan ay inoo noqdaan halyeeye bulsho. inanka dhallinyarada oo u dhashay waddanka Maraykanku waxa uu ka mid yahay dadka noloshooda jacaylka u haya, haddana qadarta eebbe ay u jeexday marinkii uu u mari lahaa noloshiisa. Andrew Jones oo 26 jir ah waxa uu la kulmay shil gaari oo keenay inuu si xun ugu dhaawacmo, isagoo wax ka noqday qaybta wadnaha. xilligaana waxa uu kari waayey inuu lugihiisa ku socdo ama uu kor isu taago, laakiin rajadii ku ahdanayd inuu caafimaad helaa ma noqonin mid istaagta. Andrew Jones oo 26 jir ah waxa uu la kulmay shil gaari oo keenay inuu si xun uga dhaawacmo. muddo 4 bilood ayuu ku sugnaa xaaladda gargaarka degdega ah, iyadoo ka hor intii aan wadnihiisu shaqada joojin ay dhakhaatiirtu gacan qabteen oo ku rakibeen wadne artificial ah oo ay farsameeyeen, kaas oo aan gudaha jidhkiisa la gelin karayn. taa darteedna ay door bideen inay dhigaan jidhka bannaankiisa, waxaana loogu riday shandad yar oo uu dhabarka ku qaadanayo. markii uu ka soo bugsaday qalliinkii lagu sameeyey, waxaa haddana uu cadaadis kala kulmay shandadan qaybta ka ah jidhkiisa ee uu hadba dhinacu la guurayo, laakiin waxa uu ka dharigsanaa in shandadaasi sabab u tahay noloshiisa uu nool yahay, isagoo markii dambena la qabsaday oo ay gacantiisa oo kale u noqotay. Andrew Jones oo hadda noloshiisu caadi tahay waxa uu si joogto ah u sameeyaa jimicsiga jidhka, isagoo sidoo kalena qabta shaqo kasta oo ku soo hagaagta. wadnihiisana waxa uu iskaga sitaa shandada garabka ugu jirta. noloshooda jacaylka u haya, haddana qadarta eebbe ay u jeexday marinkii uu u mari lahaa noloshiisa. Andrew Jones oo 26 jir ah waxa uu la kulmay shil gaari oo keenay inuu si xun ugu dhaawacmo, isagoo wax ka noqday qaybta wadnaha. xilligaana waxa uu kari waayey inuu lugihiisa ku socdo ama uu kor isu taago, laakiin rajadii ku ahdanayd inuu caafimaad helaa ma noqonin mid istaagta. Andrew Jones oo 26 jir ah waxa uu la kulmay shil gaari oo keenay inuu si xun uga dhaawacmo. muddo 4 bilood ayuu ku sugnaa xaaladda gargaarka degdega ah, iyadoo ka hor intii aan wadnihiisu shaqada joojin ay dhakhaatiirtu gacan qabteen oo ku rakibeen barnaamijkeenan waxaynu ku soo qaadanaynaa inanka xubinta wadnaha ee jidhkiisu ku shaqaynayay ku sita shandadii kombuyuutarka. nolosha aadamuhu waa mid sii socota tan iyo inta uu ilaahay ugu talagalay, si kastoo ay qaarkeenu la kulmaan caqabado iyo cadaadis nololeed, iyadoo ay jiraan dad si adag kaga gudba wareegga nolosha laakiin ku qanacsan, waxaana kuwaasi inta badan ay inoo noqdaan halyeeye bulsho. inanka dhallinyarada oo u dhashay waddanka Maraykanku waxa uu ka mid yahay dadka wadne artificial ah oo ay farsameeyeen, kaas oo aan gudaha jidhkiisa la gelin karayn. taa darteedna ay door bideen inay dhigaan jidhka bannaankiisa, waxaana loogu riday shandad yar oo uu dhabarka ku qaadanayo. markii uu ka soo bugsaday qalliinkii lagu sameeyey, waxaa haddana uu cadaadis kala kulmay shandadan